bismillaah assalaamu calaykum soo dhawaada asxaabta igu xiraan janaalka ama youtube-ka Zainab Sheekh Aadan insha allah asxaabteyda soo dhawaada insha allahu tacaala waxaan idin leeyahay meel kastoo joogtaan caafimaad baad inaad qabtiin rajeynayaa maanta waxaan wadaa videogaas aa ujeedeen quruxda badan maxaa la yiraahdaa waa buskud Soomaali caadi ah oo maaragtay sameeyay marka waxaan isdhahay asxaabtaada la wadaag baryahaanayti marmarka qaar maaragtay guriga la joogaa lockdown waaye ilmaha markay guriga joogaan oo kale buskud doolsho maalin dhaxaas hadda maasha Allah waa taa la wadaag keega iyo buskudka iyo ilmaha way iska jecel yihiin marka wax badan waxay sameeyaan cuntooyinka waqtiyada maaragtay cashada qadada quraacda u dhaxayso kale ayaga waxa waaye hadii maaragtay aad buskud u sameysid ama aad maxaa la yiraahdaa aad u sameysid doolsho labada ama cake sa u taqaanidbo waxay sameynayaan maanta dhan way iskaga noqonayaan way maaragtay iska soo baxsanayaan waxay u tahay maaragtay baashaal markaad guriga joogtid oo maaragtay ilmihiin waxbarasho aadeynin waxay u baahan yihiin waxay isaga baashaalaan soo maahan marka biskudkan ayaan sameysanay maasha Allah waxaan ku dhahay inaba caadi maahan waxaan leeyahay soo dhawaada asxaabteyda ramadaankii buu noo soo socdaa maxaa la yiraahdaa khayr nabad Allah nagu gaarsiiyo insha Allah laba bari ayaa naga xigto insha Allah tacaala waxaan leeyahay ramadaan maaragtay caafimaad qaba oo amaana oo ilaahay cudurrada iyo wax jira naga dul qaado ayaan ilaahay ka baryeena anagoo kale hadda soonkii hore taraawiix lama tukanaynin haddana sidoo kale waxaan ku jirnaa maaragtay lockdown oo masaajidka iyo maaragtay adin la ka yar maahana laguma tukado marka asxaabe insha Allah waxaan rajeynaynaa inuu ilaahay maaragtay naga qaado idinkana noo soo duceeyo intii masaajidada u furan yihiin annaga waxaan ku dhahay taraawiix inay jiri doonto Allah og marka insha Allah tacaala ilaahay waxaan ka rajeynaynaa soonka maaragtay fadligiisa iyo maaragtay nimcadiisa ilaahay inuu nooga dul qaado cudurrada ilaahay inuu maaragtay kuwii maaragtay taajidka iyo taraawiix tukada naga dhigo inkastoo gurigaada aad ku tukan kartid salaadaha sunnada ah haddana markii aad haligaa tukanaysid iyo markaad maaragtay jamaacada la tukanaysid waxaa fiican markaad dad badan tukanaysid because quraan dhaadheer lagu tukanayaa maanta dhan la taagnaanayaa laakiin haddii aad kaligaa tahay ama aad maaragtay laba qof oo kale guriga ku tukanaysiin saddex qof oo kale waxaa laga yaabaa inaad maaragtay dhowr habeen tukataan inta kale aad caajistaan laakiin markii maaragtay masaajidka kale furan yahay qofkii jaanis haayo wuxuu sameynayaa maaragtay masaajidkiisa toos u aada samaan insha Allah tacaala waxaan leeyahay soo dhawaada asxaabta igu xiran ilaahay maaragtay caafimaad taama hana wada siiyo insha Allah tacaala waxaan leeyahay videoga like dhaha comment share subscribe dadkay maaragtay haday kuugu tahay maaragtay macnaha ama maalinta kuugu horeyso janaalkay aragto tahay inta hore la joogto oo daawanaysa waxaan leeyahay waad mahadsantihiin jazakallahu khayr insha Allah tacaala adduunka un baa walaal u yahay somahan aakhira maaragtay waxba la iskuma qabto oo maaragtay waalidka iyo walaalaha iyo dadkii maaragtay awood lahaay kulli waxaa tihiin isku mid insha Allah tacaala asxaabteyda buskudkeena waa kaasa wuu jilicsan yahay maasha Allah kaana waaye ilmaha way cuni karaan buskud soft waaye marka insha Allah tacaala asxaabteyda waxaan leeyahay waan soo dhaweynayaa mar walba markasteeta insha Allah tacaala ramadaan kariim insha Allah laba bariyan oo naga xigto insha Allah tacaala waxaan leeyahay asxaabay video intaan kulmi doono waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh